kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa meel kasta naga daawanaysiin waa Fadxiya Media barnaamijyada qiimaha badnaa ee xiisaha badnaa ee diiga soo gudbin jirnay channelkaygan ayaa maanta waxa iigu martay runtii Professor Qaaliya oo taliye tusaalaba Daahir Maxamuud Xaddi oo ah Professor jaamacadda Camuud ka dhiga dhaqanka iyo suugaanta ayaa maanta iigu martay oo waliba dhalinyarada oo wada talo iyo tusaale ku soo dhawo adeerwaad mahadsan tahay waxaan ku dhiirigelinayaa ujeedada aan marka aniguna aan kula aqbalay islamida inaan waxa lagu dhaarto identity-ga ahaanshahaaga iyo yahay af Soomaaliga iyo gabayga iyo suugaanta iyo dhaqanka dharxirashada cuntada dhulka waxa aad leedahay weeyaan marka nimankii writerskii ee wax qori jiray imika way farabaday Nuuruddin wuu qoraa wax عبد أحمد إسماعيل سمطروق عبد وقراء لكن وحلو صدي وحجر رايترس كلو عصرية يا جرا هتراوي يا سعيد صالح صاحب كي محمد حاشد مع قارية وبوجي سادة دخل هالكران بوقري هاجر لاوي هالكران هتراوي وقري بوك تاسان أخري بوك حمال لقى قري ودنا لجوكتي بوك عوكل لقى قري بايوغرافيا ده marka hadaba waxaan imika eegaynaa oo dharinta inay wax qoraan baan ku dhiirigelinayaa waxana inay qoraan waxana akhriyaan afkooda hooyana ay ku qoraan marka tani waxa la adeegsanayaa processka la adeegsanayay tabta la adeegsanayay xeelada la adeegsanayay waxa weeyaan tilmaanta waxana Ingiriisiga loo yiraahdo description sifaynta marka tilmaan ayuu adeegsanay gaariye marka Allah u naxariistay gaariye iyo hadraawi nool yahay iyo Cabdiqaysna maanta dawlad Cabdi Taliib oo taasiideynayna ayaa waxay 1980 ka arkeen gabar Soomaaliyeed oo aragtidooda la indha qurux badan la af qurux badan la ilka qurux badan la sunaaradaheedu way qurux badnaayeen tibaheedu way qurux badnaayeen dabeecad kubab qurux badan markaa bay isiraahdeen malaha maxaa ka dhiman maxaafadiina dabeecaddeeda inay eegaan dabeecaddeena xaafadii bay geysay way dabeecad fiicnayd biyo u keentay biyo qabow jalxad yar ku jiray laakiin guri yar oo faqiir ah oo cariishay ku noolaayeen marka ilaahay dabeecad iyo qurux uu wasiiyay dul badan laakiin faqriga haya suugaantu markaa maxay tartaa hadday hanti tahay hadii la warshadeeyay suugaantu gabadhii ma iibi karaysaa gabadhii hadii loo iibiyo si rag badan u soo doontaan gabadhii markaa nimankii fanaaniinta waqtiga waxa ugu caansanaa Saciid Saalax iyo Cabdiqays iyo Gaariye iyo Adraawi ayaa gabadhii aabbo u bixiyay gabay baa la yiri Gaariye u soo tiri inantan aan ku iibgeyno si faqriga reerku uga baxo oo loo iibiyo loo soo rag fara badan baa arrintii soo qortay intee naagtina fooqiye halkii cariish ka dhisay gabadhii samsan baa la oran jiray heestana waxa la yiraahdaa carshigii jamaalka heesta oo Gaariye ka qoray carshigii jamaalka kursiga quruxda ayaa loo caleema saaray waxay tiri adu biloy baloy bayd awdaranka yaasiin alla samay cudoona uduga carfoona samsam caynka loo dhiga ictibaaro badana ala ma haliiti qalaf maaha amal baan oon maaha loo hooyan irir maaha tootama arabkeedu beenta iyo ma yaqaan caradaba wax ka cawda maan maqal ma codeera waa gabadh xishood baa caada عبد طلابة عطيان الأعضاء تبهي عويسكي عرفية أو صارت ويلاشنا عوريان عرفت كذا الحشة الكها عضانكا سنكودن عنبكا سنياش عضانكا سيدا بشا سيدا لوصوري قورتيدن عبا سيريين عباريضو كوبكا قرصتا أنا قلنا معاسيو أتردي أمان له عرشي جمال كان وعلى مساره أن عذر هتراوو هم بليغ وصائر مركان قلنا بريء أن دعد يريان عاشق كتري لا به يسود من تليون رعينا يا وتطوينا قصلان ويان تطكي هو فرحان موقتها مركا قرامي كتري إن أنت مجا عاشقين سين كسعدية لو نجري نكر الله قرأ على الجسدي قبل كلام الجسدي سارئي خطرية بقول لكن سعدية سيدانو برطيبا سيلونادو سيدانو برطيبا سيلونادو سعدية عالم با
laysuudhaay sacdiya caalamba lalalan sacdiya caalamba laysuudhaay markaa haddana gabayhaan baan u tiriyey waxaan ku idhi cawdibiloy balaybaydh cawadara ka yaasiin qoonkeedu ma reer jimba maqaar ree aadanba mise waa qolo kaloo isqaadqaad iyo burjiba ka sii qooqweyntuka kuwa hubqaadsan qumaash dharkeedu waxaan ay qarinayaan qumqum iyo cadar miya marka waxaan ku soo gabagabaynaya heestii aan camuud ku ammaanayay camuud baan haddana gabadh ka dhigoon jeclaaday camuud baan gabadh ka dhiganaa moogtahay aniya nabad batee cawiya khayr batee barbaartaad caymisay cawadan kuu gaaraadi camuuday waanownaay cawaalo ruux kastiiba cisaantii ceelka keen anna gabadh baan camuud ka caashaqaye cadoyma ka raadiyaa camuud hobay hobay hoy camuud hobay hobay hoy camuud faaduma cilaan leeyay hobay hoy waynakaa laakiin waxaan u raacinayaa heesta saaxiibkay baa tiri heestanna oo yuusuf cali cilmi yuusuf cali cawar ayaa lagu yidhi bal jacaylka warran arrimaaheedu ka sameeyey jacaylkii helay haldhaa quruxdii jacaylkii helay qadiija balwaa yahaya anaan la haalisahay allah arrimaahee hanaahaban niman helana mahambayne runtii daahir maxamuud xadiyo lagama caajisayo intaa inka badan baan jeclaan lahaa inaan kusiyaag fadhiyo dhalinyarada ku daawanaysaa kulay taliya tusaale ayay u noqonaysaa fikradaha wanaagsan iyo duxda kugu duugan in laga faa'iideysto ayaa muhiima horta anigu aad baan u jeclahay waa aabahay saaxiibkii oon aad u jeclahay oo adeerkaya oo waalidna waliba waa aabahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabta qiimaha badan la jiranka daawanaysa waa Fatxiye Laki Media sidoo kalena dhalinyarada rag iyo dumarka midda jacayl mid qof baa jacayl ka baxa marka heshiisyada la kala galo tusaale iyo talaayo inaga siiyay badaha maansada oo fara badan waxaan ka qoray berigii aan ka qalijabinay la foole buug la yiraahdo xulashada suugaanta gaariye selected poems of gaariye takale miisaanka iyo qaafiyada iyo dadka gabayga loo barana waan ka bartay dad gabayga imka ay doonayaan dhalinyartu inay barto qaar badan baa yimid imka aan baray inankayga waan baray tooto inankiisa guuleed waan baray imka laxankii wax u saaray doonayaan heesay tiriyeen labaduba marka waa inaad afkaaga wax ku curisaa marka gaariye tana kale aan soo qaadanayaa wuxuu yiri ragga iyo dumarku marka ay jacaylka wada abuuraan waxa naaqusnimada oo inuu hirgala jacaylkii dhaqan ahaan waa inta dhaqanka Soomaalida meesha uu inta ku leeyahay nimanka had iyo jeer dhaqan ka baxa jacayl ka baxa jabiya abuse gareeya waa bar'ina marka wuxuu ka sameeyay ruwaad la yiraahdo hooyo laga galay hooyadii la guusan lahaa baa la eeda laga galaya marka October iyo abwaan baa bariga la sameeyay 1979 uu ka qayb galay aqoon iyo abwaan waxa ku busheeyay ninka Cabdi Bashiir Nabuur October yada lahaa asaas number ka gashay ragga kale san gubiyo xodan gaariyana waxa lagu yiri waa fiicantay laakiin waxaan doonaynaa ma hadde waa isagu dhaqankii xasuuka leeyay marka wuxuu ka tiriyay gabayga kale yiraahdo aniguna sidaan qabo waxaaruhuba qoorqabad biyo kuma qurquriyaan naqiina mooy qasab kuma balway karo qof qasab kuma tiri kara gabayga qasab igu amana taadara ama karis marka wuxuu yiri wuxuu garqaadiyay wiil iyo gabadh wiilka lugooyay bay gabadh la talinaysa ninkii Faarax ee ku lugooyay magaraysa samsamay ha u tagin hadeed ninka iska jooji labaatan buu lugooyay gabadhiiba wiil ka dhigtay maqalay wallahi ba badalay wuxuu weliyahay baxsanay bixisadu wadaabi waa wallahi habasraa loo jiray anigu basray barigaan yaraa waan boodi jiray waan bari xadaa bartaataan tataal gogoshaasi baas aniga ku baa ninka ku boqran waa xila bilaal waa bukaan helay anigu bad qabo dukashada bushmihii beleeyay aadna kugu bawiro wax ku burqaday basarkii warku igu badursan jiray
bii waa warlaay baantaydan hoo waad baahan tahay looma bahalo culo bas haddaad tahay marka waxa weeye ayuu ku socdaa inantii kalena mid kale oo gabadhii oo ninkii lahaa dembigu kaga baxay maxay tidhi ubacdayda waranay arrinkayga laalmow taladaan duufaay axdigaan rumaystiya ma arday jacaylkii ma afbeelexiisii ma abaaday geedkan ubixiisa guranla farqaadkii socodkii meersida wareegii orgigii la naxshaa raacda dhaqataa kuwaas qayseystay ayaantii la gowracan sogaaday baan ahay umul yuuraraan ahay cuduriga unkame baa iniintiisii biqisho ayax barii soo maray eeluu ka tegay baa uurkayga jifto aramay hor anigoo arkaya naxankaygii daqaanqoo macaan jeceshii oonsuna loo ursiye malabkay ku idlaatay baan ahay iska eega baan odhanaya inta kale waan la hadhay inta ayaan asxaabteydii kusoo gabagabaynayaa kulan dambe oo xiisa leh